Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Muuqaalka maanta insha Allah waxaan kaga hadli doonaa dagaalkii Waadi Birbaad ama Waadi Lubka. Wuxuu ahaa dagaalkii sabab u noqday inay muslimiintu gacanta ku dhigaan dhulkii loo aqoon jiray Andalus, haddana loo yaqaano Spain iyo Portugal. Waa barnaamijkii labaad ee dhacdooyinkii ugu waaweynaa taariikhda muslimiinta ee dhacay bisha Ramadaan. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Marka ugu horreyda waa halkii Andalus waxaa lagu magacaabi jiray Spain iyo Portugal, sidoo kalena loo yaqaano jasiirado eekaha Iberia. Andalus iyo Portugal xilligaa waxaa ka jirtay dowlad ay lahaa jireen niman lagu magacaabi jiray Quudiyiin, laakiin Quudiyiinta ka hor waxaa ka jiray oo deganaa jiray qabaa'il Yurubiyan Germanic ah oo lagu magacaabo Vandaliyiin. Magaca Andalusna halka ayuu ka yimid, sababta waxaa la dhihi jiray markii ay Vandaliyiintu deganaa jireen Vandalisia, kadibna wuxuu isku bedelay Andalusia. Muslimiintu markay tageen wuxuu isku bedelay Andalus. 84 Hijriga waxaa loo soo magacaabay wadamada waqooyiga Afrika ama galbeedka Carabta oo xilligaas raacsanaa dowladii Amawiyiinta nin lagu magacaabi jiray Muusa ibn Nusayr. Muusa ibn Nusayr wuxuu ku guuleystay in uu dejiyo kacdoomadii tirada badnaa ay sameey jireen dad meesha deganaa jiray oo lagu magacaabi jiray Barbar. Muslimiintu waxay qabsadeen galbeedka Carabta xilligii Uthman ibn Affan ilaa xilligii Amawiyiinta bilowgeedii Muawiya ibn Abi Sufyan, laakiin laga soo bilaabo xilligaas ilaa 80 Hijriga laga soo gaaro waxaa ka dhici jiray meesha kacdoomo aad u tiro badan oo dadkaas Barbarka ay sameey jireen. Muusa ibn Nusayr isagu markii uu ku guuleystay inuu wixii kacdoomo ah uu damiyo, wuxuu indhaha ku qabtay halkii ku xigtay oo ah Andalus. Xilligaa waxaa ka jiray galbeedka Carabta ama waqooyiga Afrika laba dekedood oo waaweyn. Mid waxay ahayd Danja, midna waxay ahayd Sabta. Sabta waxay ku taalaa Morocco ilaa haddana waxaa haysta Isbaanishka. Xilligaa waxaa haysan jiray oo ka tali jiray nin boqor ah oo lagu magacaabi jiray Julian, waxayna ahayd magaalada kaliya ee muslimiintu ilaa xilligaas aysan qabsan, halka Danjana ay hadda ku taalo Tunisia. Xilligaasna waxaa gudoomiye ka ahaa Daariq ibn Siyaad nin lagu magacaabo. Muslimiintu maadaama ay doonayeen inay ku duulaan Andalus, waxay ku qasbanaayeen inay helaan doomo ka gudbiya marinbiyeedka u dhaxeeya Spain iyo Morocco. Maadaama xilligaa muslimiintu aysan lahayn doomo tiro badan oo ku filan inay gudbiyaan, wuxuu bilaabay gudoomiyihii Danja Daariq ibn Siyaad inuu sameeyo doomo 87 Hijriga ilaa 90 Hijriga, laakiin doomo sidaa u tiro badan ma uusan sameyn, dhowr doomo ayuu sameeyey. Sidoo kalena wuxuu bilaabay in ciidan Barbara oo diinta Islaamka iyo tababar ciidan siiyo si uu ugu diyaariyo inay noqdaan ciidankii uu ku tagi lahaa Andalus, maadaama muslimiintii Carabta ee ka yimid dowladii Amawiyiinta ay ku kala firaarsameen oo ay kala haysteen Maghrib al-Arabi magaalooyinkii ku yaalay. Suurtagal ma ahayn in ciidankaas oo dhan inta la wado dagaal Andalus la geeyo, waxaa loo baahnaa ciidan kale. Sidaas darteed ayaana loo diyaarinayay ciidamada Barbarka. 90 Hijriga markii la soo gaaray, waxaa soo gaartay gudoomiyihii Danja warqad ka imaatay ninkii maamuli jiray magaalada Sabta ee lagu magacaabi jiray Julian. Warqadaas wuxuu ugu soo bandhigay Julian muslimiinta inuu ku caawiyo doomo gaarsiiya Andalus oo isagu leeyahay, sidoo kalena inuu ku wareejiyo xeebta magaalada Sabta, sidoo kalena in uu macluumaad ka siiyo juqraafiyadda iyo sida uu u yaalo dhulka Andalus. Dhanka kale Julian isaga maxaa faa'iido ugu jiray, muxuuse ku qabay muslimiinta bandhigaas uu soo bandhigay? Dhowr qodob darteed ayuu ugu soo bandhigay. Kan koowaad, Julian waxay cadaawad iyo cuqdad kala dhaxeeyay ninka ka taliya Andalus oo lagu magacaabi jiray Rodrigo ama Ludriiq Carabtu ay qoraan. Sababtuna waxay ahayd ninka wuxuu dilay nin meesha ka horeeyay oo ka tali jiray oo lagu magacaabi jiray Qaydasha. Intuu afgambiye ayuu dilay. Qaydasha iyo Julian saaxiibo ay ahaa jireen. Tan labaad, waxaa fariimo u soo diri jiray ciyaalkii uu dhalay Qaydasha iyagoo ka codsan jiray Julian inuu ku caawiyo sidii ay u soo cesho lahaayeen boqortooyada aabahood iyo sidii ninkan Rodrigo lagu magacaabo ay uga arguda lahaayeen. Laakiin wuxuu ka taliyaa hal magaalo, awood uma uusan hayn. Wuxuu u arkay muslimiintan awoodda leh ee ku faafay galbeedka Carabta ama waqooyiga Afrika inay iyagu yihiin dadka kaliya ee awooda in boqortooyadii saaxiibkiisa ay soo dhiciyaan. Sababahaas waa sababaha ugu weyn ee ku kalifay inuu u soo diro muslimiinta warqadaas. Faa'iidada uu ku qabana waxay ahayd, wuxuu ku codsaday warqadda in wixii xoolo uu ka tagay uu lahaa ninkii lagu magacaabi jiray Qaydasha haddii muslimiintu ay guuleystaan isaga lagu soo wareejiyo. Xoolaha waxay dhamaayeen 3000 oo isugu jira beero iyo guryo iyo xoolo kale uu ka tagay ninkii lagu magacaabi jiray Qaydasha, waxaana xoog ku haystay dhammaantood Rodrigo. Gudoomiyihii Danja Daariq ibn Siyaad wuxuu warqadii u diray Muusa ibn Nusayr. Muusa ibn Nusayr isaguna wuxuu u diray Dimashq iyo khaliifkii Amawiyiinta ee xilligaa Waliid ibn Cabdilmalik.
waliid ibn cabdilmalik arrinka ku ogolaaday, laakiin wuxuu kusoo xiray hal shardi oo ah inaanay muslimiintu ku kalsoonaan tilmaamaha iyo qaabka uu ugu tilmaamay ninka lagu magacaabo Julian ay qof u diraan ama ciidan iyagoo ay u diraan Andalus si ay u soo ogaadaan juqraafiyadda Andalus iyo sida ay u taalo. waxaa la diray 500 oo nin oo hogaaminayo nin lagu magacaabi jiray Tariif ibn Malik, waxayna ka degeen Ramadaan 91 hijriga. muddo kadib ay soo laabteen iyagoo tilmaan dhameystiran ka bixiyay dhulka Andalus iyo sida uu u yaalo. 92 hijriga kuna beegnay 711 miilaadiga muslimiintu waxay ka degeen dhulka Andalus. markii ugu horreeyay waxay ku degeen buur loogu magac daray buurta Daariq mar dambe ilaa haddana jirta magacaasna wadata. hadda waxaa ka taliyay Ingiriiska waxaana ku taalaa Spain waxaana lagu magacaabaa Gibraltar. muslimiintu markii halka ka degeen tiradoodu waxay ahayd 7,000 oo nin oo kaliya. isla markiiba waxay isku dhaceen ciidanka ilaalada xeebaha ama ciidanka ilaalada xuduudda waxay tiraahdaba oo ahaa koox yar oo Isbaanisha. kooxdii waa ay kala carareen. isla markiibana waxay warqad u dileen magaalada Tulaydila haddana loo yaqaano Toledo, magaaladaas oo ahayd caasimadii Andalus ee xilliga. warqadana waxay kula wadaageen ciidanka cusub ee kasoo degay dhulkooda. Daariq ibn Siyaad isaguna wuxuu raadsaday meel uu dagaalka ku haboon uu tagi karo, wuxuuna tagay tog lagu magacaabo Lukka ama Lakka, sidoo kalena lagu magacaabo Birbaad. markii uu toga tagay wuxuu isku aadiyay meel dhabarkiisa iyo dhanka midigba ay ka xigaan buuro, dhanka kalena oo bidixna uu ka xigo biyo meel khara ah oo biyo galeen weyna, wuxuuna u baneeyay ciidankii Isbaanishka hortiisa oo kaliya. ciidankiisu 7,000 ay ahaayeen markii hore sida idin sheegay ay kusoo degeen. markii uu toga degay kadib wuxuu darsaday gurmad waxaana loo soo diray 5,000 oo ciidana, sidaasna waxay ku noqdeen 7,000. dhanka kale isagana Lothric wuxuu imaaday isagoo wata 100,000 oo ciidana, sidoo kalena xarka wata isagoo isla kooxdan yar ee soo degtay. hadda soo qabanay waana soo xirxiri doontaa. dagaalku wuxuu bilowday 28 Ramadaan wuxuuna socday 8 maalmood. 8 maalmood kadib guusha Ilaahay wuxuu siiyay muslimiinta waxayna ka adkaadeen ciidamadii Quudiyiinta ahaa. halkaasna waxaa ku geeriyooday Lothric sida kutubada taariikhda qaar ay qoraan, qaarna waxay qoraan inuu dagaalka ka baxsaday oo dhanka waqooyi u baxsaday, laakiin mar dambe taariikhda lagu ma arag warkiisa. muslimiintuna kadib waxay qabsadeen magaalada Sevilla ama Sevilla ama Ishbiiliya sida qori jireen kutubada taariikhda muslimiintu. sidoo kale waxay qabsadeen Cordoba, Granada, ilaa 4 bilood kadibna ay qabsadeen magaalada caasimadda Spain ee Tulaydila. halka ayuuna ka bilowday xukunkii muslimiintu ay xukumi jireen dhulka lagu magacaabo Andalus ama Portugal iyo Spain. dagaalka Waadi Lukka ama Waadi Birbaadna wuxuu furo u noqday guushii muslimiinta iyo xukunkii muslimiinta bilowgiisa. muuqaalkeeni maanta intaas uu ku egyahay. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tagayaa amaana Allah.